waxaan kusoo dhaweynayaa walaalkeen Sheekh Luqmaan inuu marka hore walaalaha salaamo falyatafadal walaalo barakallahu bismillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan waxaan salaamayaa walaalaha nagala socda xagga internetka ama aalada casriga ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu Islamic Center At-Taqwa iyo 114 iyo maxaa la yiraahdaa Abu Yahya reex wacan dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa mahadsantahay walaal muxuu ahaayey guddoonka naga guddoontay inaan caawo ka wareysano gabayo badan ruantii aad ka tirisay xagga diinta xagga culimada xagga muxuu ahaayey arrimo kale oo ku saabsan mujtamaca islaamiga ah ugu horeyntii haddaan gabay waxaa jira aad ka tirisay geeridii raxmatullahi caleyhi caalimkii soomaaliyeed ama caalimkii muslimka sheekh cumar faaruq xaaji cabdisadaan raxmatullahi caleyh walaal luqmaan waxaan ku weydiinayaa gabayga goobta aada geerida maqashay iyo xaaladay kugu suurto gashay in markaad maqashay iyo gabayga waxay kugu keenay inaad in yar naga taabsiisid insha allah bismillah abu axmed aad baan kuu salaamayaa maxaa la yidhaahdaa ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto sheikheeni geyiga soomaaliyeed laga yaqaanay ee macruufka weynka ahaa sheekh faaruq xaaji cabdi suldaan ilaahay naxariistii janno ha siiyo ha geeyo ilaahay ha u naxariisto waxaan ka tacsiyadeynayaa dhammaan qoyska reer xaaji cabdi suldaan iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ayaan ka tacsiyadeynayaa geeridaa ku timi sheikii weynaa ee macruufka ka ahaa ummadda soomaaliyeed maxaa la yirahdaa anigoo shaqo ku jira ayaa lay sheegay sheekha geeridiisa shaqadii xitaa waan wadi kari waayo waan kasoo baxay markaan guriga imi ayaa ay galabta ayaa waxay soo wacay walaalo badan ii sheegay in caawa maaragtay la qaban doono shir weyn oo maxaa la yidhaha caalamka oo dhan ah culimo waaweyn ay kasoo qeybgelayso marka waxaa la yidhi gabay baa lagaa rabaa geerida aad ku cabiraysid markaa kahorna abu axmedow inaan iska yara daayo oo murtida iyo maxaa la waxaan gabayada iyaan ka dhex baxo ayaan damcay marka wakti badanna maan haysan waxaana u daynayay markaa dee shucara goodigii shucara maxaa la ayaan ka baqay marka bahalkii mar qurba iska yimi ba subxaan allah sida roobka u maaragtay u yimid marka insha allah wuxuu ahaa ka bilaamayay gabaygaasu maskaxdayda anigoo mamnuucayo murtida meel iskaga ooday anigoo mamnuucayo murtida meel iskaga ooday maskaxdayda anigoo ka jaray hindiskenkeeda mawqifkaana aan qaatay oon meel cad ka istaagay geerida markii aan maqlay buu mudhiisa soo siiyey maskaxdiina qaban weyday oo maankii soo dhaafiye inaan maanta sheegana waa lagama marmaane ruuxii maqlayaba qofkii maqan ha gaadhsiiyo ruuxii maqlayaba qofkii maqan ha gaadhsiiyo mashaayikh ninkii ugu mudnaa magaca soomaali muftigii la maamuusi jiray macalinkii diinka maantana ma faaruqaya mawdku naga qaaday maqaadirta eebiyo waktigu waa mid ka adaage mawdkuna xaq weeyiyo adduun maalma qura weeye maantana ma faaruqaya mawdku naga qaaday maqaamkuu fadhiyey shiikhu baan miliilicayaaye macnihii qur-aankiiyo fadwadaan miliilicayaaye maxaadiradiyuu geli jiray baan miliilicayaaye maantana ma faaruqaya mawdku naga qaaday macnihii qur-aankiyo markuu mariyo diinteena oo mahmahyo iyo gabayo iyo uu murtiya sheego may iyo maxaa tidhiba waa wada maqsuudaane may iyo maxaa tidhiba waa wada maqsuudaane maskax diinta laga buuxshay baa mawle ku arsaaqay micnihii markuu daariso uu meel kastaba eego masalada la weydiin jiray buu midhir ku sheegaye muqnigiiyo minhaajkiiyo tuxfaha meel iskugu keenye muslim iyo bukhaariba intuu mariyey noo duubiye maantana ma faaruqaya mawdku naga qaaday haddii mawdka maa lagu gado oo la isku moodayo malaayiin dad baa bixin lahaa magaca soomaali mustaxiil qof mawdkii galay baan maaro loo helin
dadweynahay maqlaayo ducadaan mariyo aamiin dhe muwaafiqi su-aalaha allow malagu weydiiyo qabrigiisa mawlow jannada daaqad uga muuji macsharkii qiyaamada allow aanu murugoonin kitaabkiisa maanta allow midigta loo saaro mustajiib ilaahayow ducaada maalig ba tahay mustajiib ilaahayow ducaada maalig ba tahay